siyaabo looga hadla jira ma ahayn macnaheedu in anigoo jooga magaalada guddoomiyihii kumeel gaarka ahaa ee golaha shacabka oo jooga magaalada inuu mediaha noo soo mariyo uu mediaha lasoo istaago ou dhaho ma damaanad qaadi kara mana guda karo intaasaa ku filan ba in shaqada looga joojiyo loogana ceyriyo shaqada. waayahay maxaa marka hadda qorshe ah haddii aad shaqadii ka joojisay dabcan isagiina uusan aqbalin shaqa ka joojintaada doorashadiina loo madlan yahay maanta 7 inay dhacdo isagana uu sheegay in aan doorasho dhici karin oo amniga oo aan la sugi karin maxaa marka idin qorshe ah ka wasaaradda amniga? horta walaal waa kuugu celinaya inuu aqbalo iyo inuuna aqbalin muhiim ah. dalkan de wuxuu leeyahay shuruuc iyo nidaam lagu hago. aqbalaadiisa daruuri ma ah. ninkaa shaqada waa ka joojiyey waana sidii aan uga joojiyey. dabcan in shaqadiisa dib loogu fasaxo iyo in uu xilka laga qaado iyo inuu ciqaab kala mudaysto intuu waxay ku imaan doonaan markii la guda galo. war saxaafadeedkaagi waxaa ku qoran inaad ka joojisay 27 bisha maadan sheegin inta maalmood aad ka joojisay maxaa marka la oran karaa? maya walaal war saxaafadeedkayga waxaan ku xusay in aan u diri doono maxkamadda ciidamada qalabka sida xeeraalinta kolkii baaritaanka lagu sameeyo ay soo dhammaato ayaa go-aan kale laga gaari doona haddii alla awoodda laga raali noqdo. laakiin ninkan nin odayahoo runtii dee da-ah ayaan ku tiri jiray kuna xurmayn jiray balse waxaad moodaa inuu u yaro dhaqmay si ay ka muuqato mas-uuliyad darro aada u ballaaran. waayahay isaga marka golaha wadatashiga qaran ayaa uu magacaabay inuu yahay guddoomiyaha amniga doorashooyinka maadaama guddoomiyaha aad sheegtay hadda in aad xilka ka qaaday ama aad ka joojisay aad ka joojisay xilka sidee marka doorashadu kusii soconaysaa yaa sii wadaya soo uma baahna marka in golihii wadatashiga qaran ay qof kale u magacaabaan oo hawsha wada? wax yar aan ku saxo golaha wadatashiga qaran uma magacaabeen qof waxay u magacaabeen mas-uulkaasoo ah taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed. dabcan macnaheedu maaha xijaar in loo magacaabo qofka loo magacaabay waa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed qofka booskiisa sii haya ayaa sii wadi doonaa. waa tahay ugu dambeyn marka maanta oo 27 oo maalin arbaca ah oo doorashaduna lagu ballansanaa ma dhacaysaa marka amniga yaa sugaya yaa damaanad qaadaya maadaama taliyihii uu sheegay in amniga la sugi karin? dabcan guddoonka kumeel gaarka ah golaha shacabka iyo xildhibaanada ama mudanayaasha golaha shacabka ayaa u madax bannaan goorta iyo goorta la qabanayo iyo goobta lagu qabanayo doorashada. ma xaqiijin karta adiga marka maanta in doorasho dhacaysa in kale? hay-adaha amnigana mas-uuliyad ayaa ka saaran inay ka kaalmeeyaan ama ka saacidaan ama mas-uuliyadda amniga qaataan. wasiirkii amniga ayaa tahay ma qiraysaa marka ama ma noo xaqiijin kartaa in maanta doorasho ay dhacayso iyo in kale? taa mas-uuliyaddeeda maaha laakiin mas-uuliyaddeeda waxay tahay amnigooda in la sugo haddii beri doorasho dhacaysana amnigooda waa sugaya.